Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sanadkii 1958 dalka Shiinaha waxaa ku habsaday gaajo aad u daran, taas oo loogu yeero gaajadii weyneyd ama sanadihii musiibada. Waxayna gaajadani socotay muddo 3 sano oo xiriir ah. Waxayna dishay abaartaani dad lagu qiyaasay 45 milyan oo qof. Runtii ma ahan tiro yar, waa number u dhigma 3 laab tirada dadka Soomaaliyeed ee hadda ku nool dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Musiibadani waxaa lagu qoray dukumiintiga ugu muhiimsan arkiifyada dalka Shiinaha, waayo waa taariikh madow oo reebtay xasuus murugo leh. Waxay kaloo abaartaani shacabka Shiinaha ku qasabtay wax alla wixii nool ama dhintay inay cunaan, taas oo maanta dhaqan u noqotay shacabweynihii Shiinaha. Haddaba gaajadani dadka badan laysay maxaa sababay? Runtii ma malaysan kartid waxa arrintaani sababay. Ma kula tahay in shimbir yar oo buul ku jirta in ay dhibka intaan la eggeysan karto? Jawaabtu waa haa. Cajiib. Haddaba sidee ku dhacday oo shimbir yar oo aan ogsoonnahay tabarteeda ugu suura gashay inay disho malaayiin qof? Waxaa lagu magacaabaa shimbirka sabab u noqday inay dhintaan 45 milyan oo qof oo Shiineys ah. Ryan ama Higil waa shimbir gudaha dalkeena Soomaaliya caan ka ah oo rahan u socda, aadna u cuna masagada ama haruurka. Musiibadani kadib, shacabweynihii Shiinaha waxaa dhaqan u noqday cunidda cayayaanka sida baranbarada, kibilayda ama fiidmeerta, tixriga iyo dhammaan noocyada kala duwan ee xasharaadka. Halkaani ma jiraan wax la dhaafayo, xataa waxaa la cunayaa ilmaha dhiciska ah. Jayna bini'aadam ma ahan. Haddaba gaajadii weyneyd ee shacabka Shiinaha ku habsatay wuxuu xisbigii Shuuciga ahaa ee talada dalka hayay u bixiyey musiibadii 3 sano. Wuxuuna dunidii iyo shacabkiisaba u sheegay in gaajadani sababeen musiibooyin rabbaani ah sida roob yari, duufaan iyo musiibooyin kale. Waxayna gaajadani bilaabatay sanadkii 1958 waxayna socotay muddo 3 sano oo xiriir ah ilaa 1961. Hogaamiyihii Shuuciga ahaa ee talada dalka hayay ee lagu magacaabi jiray Mao ayaa bilowgii sanadkii 1958 amray shacabkiisa iyo ciidankiisaba inay duulaan ballaaran ku qaadaan shimbiraha lagu magacaabo Ryanta ama Higilka. Wuxuuna madaxweynaha shimbirahani ku eedeeyay inay yihiin burcad iyo tuugo dalka ku soo duushay oo xadaya bariiska dalka u soo go'i lahaa, isla markaana shacabweynaha Shiinaha iyo dowladooda ku hor istaagan yihiin horumarka. Mar haddii la laayo shimbirahani, waxaa dalka u suura galaya in uu helo kayd bariis oo aad u badan. Laakiin waxaa yoolkeena hor taagan shimbirahan waxayna nooga daran yihiin dowladaha kapitalismka ah ee cadowga ku ah nidaamka Shuuciga ah ee dalkeena Shiinaha, ayuu Mao ku qudbeeyay. Haddaba dowladdii oo madaxda ka ahaa Mao waxay weerar cir iyo dhul ah ku qaaday iyadoo adeegsanaysa shacabkeeda iyo ciidankeeduba miskiintii yarayd ee lagu magacaabayay Ryan. Shacabkii waxay adeegsadeen wax alla wixii dhawaaqi kara oo waxay garaaceen wiilashii biraha ka samaysnaa si ay shimbiraha u ceyriyaan, halka ciidankii iyo guutooyin xirfadlayaal ah shimbirihii ku laayeen rasaas tiro badan oo cirka loo ridayo. Waxayna shimbirihii dhulka ugu soo daateen sidii roobkii oo kale. Qaar ka mid ah shimbiraha waxay u dhinteen daal iyo haraad, waayo waxaa loo diiday in ay dhulka ku soo degaan. Magaalada caasimadda ah ee Beijing oo keliya waxay dowladda iyo shacabkeedaba ku laayeen 3 milyan oo Ryan ah. Qofkii dila tiro badan oo Ryan ah waxay dowladda ku abaalmarinaysay lacago. Waxay kaloo qofkaasi u aqoonsanaysay inuu yahay geesi qaran oo dalkiisa ka difaacay cadow horor ah. Haddaba falkaani arxanka daran ee lagu laayay malaayiin shimbiro ah, isla markaan lagu burburiyey ukumo iyo boolal tiro badan oo shimbiruhu ku tarmayeen, maxaa ka dhashay? Mao, hogaamiyihii Shiinaha ee qorshahani keenay, ayaa markii la laayay dhammaan shimbirihii dalka joogay bannaanka u soo baxay asigoo faraxsan. Wuxuuna ku faanay in maskaxdiisa ka soo maaxatay hindiso qurux badan oo dalka lagaga badbaadinayo cadowga, isla markaana kor loogu qaadayo wax soo saarka dalka ee dhanka beeraha. Wuxuu intaasi sii raaciyay, maadaama aan baabi'inay shimbirihii dalaga cunayay, waxaa hubaal ah in sanadkan noo soo go'i doono bariis badan, isla markaana aan gaajada ka xuroobi doono. Laakiin sida uu filayay Mao wax uma dhicin. Waxaa dhacday arrin aan la filaynin.
waxaa ooda soo goostay balaayiin xasharaad iyo ayax tiro badan, kuwaa oo aan waxba hambaynin, wax kastana cagta mariyey. Waxay dhulka la simeen dhammaan dalagii bariiska u badnaa ee beeraha laga filayey. Haddaba maxaa arrintaani sabab u ah? Waxay sheegeen khubaradu in arrintaani ka dambaysay tixgelin la'aanta nidaamka loo yaqaano ecology-ga, nidaamkaas oo hoosta ka xariiqaya in la ilaaliyo habnololeedka deegaanka. Waayo deegaanka kaliya kuma noolid, waxaa kugula nool noolayaal tiro badan. Marka haddii aad noolayaashaasi mid ka mid ah deegaanka xoog kaga saartid, waxaa dhacaya musiibooyin waaweyn. Taasi ayaana ka dhacday dalka Shiinaha. Markii xoog looga saaray deegaanka shimbiraha, waxaa ooda soo goostay wixii cadow ku ahaa dalagga oo ay shimbiruhu cuni jireen, isla markaana ka ilaalin jireen dalagga beeraha. Waayo shimbiraha dalagga beeraha ma quutaan, waxay kaloo cunaan dhammaan xasharaadka sida ayaxa iyo wixii la mid ah. Mar haddii ay nidaamkii ka baxeen, waxaa booskoodii soo buuxiyey oo wax kasta cunay xasharaadkii iyo ayaxii. Muddo yar kadib, waxaa dadweynihii Shiinaha ku habsaday gaajo ballaaran oo guri kasta gashay. Dadweynihii Shiinaha waxay waayeen wax ay cunaan, waxaana ku bilaabatay dhimasho oo dadkii waxay u geeriyoonayaan gaajo darteed. Ma haystaan wax ay cunaan. Waxaa la waayey qof kale oo dhintay aaso. Gaajadii weynayd ayaa dalkii ku faaftay oo gobol kasta ku fiday. Xisbigii Shuuciga ahaa ee waxaanu idil sabab u ahaa wuxuu isku dayay in uu qariyo waxa keenay gaajadan iyo tirada dhimashada. Wuxuu dusha ka saaray arrintaani musiibooyinka rabbaaniga ah sida roob yari iyo duufaan. Waxay dowladda Shiinaha musiibadaani qarisaba waxay markii dambe si rasmi ah u shaacisay sanadkii 1980kii. Waxayna sheegtay in ay musiibooyinkaasi ka dambeeyeen qorshe xumo ka timid dhanka dowladda. Dhanka kale, waxay dowladda been ka sheegtay tiradii ku dhimatay gaajadan, waxayna tiradaasi ku sheegtay 15 milyan oo qof. Laakiin ilo kale oo madax bannaan oo arrintaani u kurgalay waxay caddeeyeen in gaajadani u geeriyoodeen dad lagu qiyaasay 45 milyan oo ruux. Haddaba ma kula tahay markii uu Mao qorshahani shimbiralaynta ah la imaanayay inuusan jirin qof ku hor yimid? Dabcan waddanka waa dal ballaaran, wuxuuna leeyahay dad khubaro ah oo ku xeel dheer dhanka deegaanka. Sidoo kale waxaa jira culimo ku wanaagsan dhanka beeraha. Waxaa hubaal ah inay jireen rag qorshaha Mao diidan, laakiin ka hor imaan waayey hindisihiisa. Waayo waxay ka baqeen seefta dowladda Shuuciga oo markaasi gal ka baxsanayd in ay la tagto. Sidaas darteed way iska aamuseen. Dadkiina hortooda ayay ku silceen kadibna ku dhinteen. Ayaga naftooduba waxay ka mid noqdeen dadkii ku geeriyooday ama sida dirqiga ah ugu badbaaday musiibadan. Haddaba Soomaaliyay ogaada in diktaatoriyaddu dhibkan leedahay. Waayo ma aqbalaan kaligood taliyaasha naseexada iyo talada wanaagsan. Waxay xooga saaraan fulinta qorshahooda guracan, waxaana marka dambe ka dhasha qorshahaasi musiibooyin dad badan oo aan waxba galabsan ku dhintaan.